meeshii aan shalay joognay inuu waagu mar kale noogu baryahay option ma aha. waa ka soconaynaa, waan soconnaa. dalkan labada sano ee soo socoto haddii ilaahay yidhaahdo wejiga uu maanta leeyahay weji aan ahayn oo positive ah oo ka qurux badan ayuu yeelanaya haddii alla yidhaah. waa soconaynaa, wuuna qurxanaanayaa dalka. arrimaha siyaasadda baryahanoo dhan waxbaa ka jiro. siyaasadduna sideedaba waa iska buuq badan tahay, waa la garanaya. dimuqraadiyooyinka adduunka ugu waaweyn ee ugu qadiimsan ayaa dooduhu siyaasaddu mar walba ka dhex taagan yihiin. weliba markii dadka ay timaado jawiga ay soo gasho qandhada doorashada, fever of election, markii waliba ay subjectiga laga hadlaayo uu yahay weliba waa badan tahay muxuu ahaay buuqeeda iyo qanadeeda. soomaaliyana ugumaba sii jirto oo ninkii waa kii yiri muxuu ahaay dabaylaa jirta inta la yiri adigu umaba faruuridba ninkii yiri oo ay soomaaliyana uguma sii jirto. laakiin dalkeenna ma rabno inaan ku hogaamino siyaasad iyo tallaabo kala qaybinaysa, dhaamac keenaysa, colaad keenaysa. maya, ma rabno. waa laga yaabaa siyaasad dadku ay ku kala horeeyaan laakiin la isku daba socdo oon la kala go'aynin, la kala haraynin, la kala tegaynin, laakiin lagu kala horeeyo oo dadka qaarna ay u haliileen oo ay u horeeyaan, kuwa kalena ay muxuu ahaa tartiib un ay raaci doonaan oo jawi ay ku raacaan oo iman doono. waa qabnaa, waana ka shaqaynaynaa. qof Soomaali ah oo laga maarmo ra'yigiisa ama aan loo baahnayn ma jiro. iska daa haddii weliba mas-uul uu yahay oo hogaamiye yahay, shacabka lafsadooda ayaa muxuu ahay ra'yigooda iyo taladooda aan laga maarmin. laakiin mar kale waxaan ku celinayaa laba qodobba aan waxayno. meesha la joogayaanay nala qurxoonaanin, nala fiicnaanin. meesha aan joognaa meel qurxoon ma aha, meel fiican ma aha. inaan ka guurno, ka soconno horta aan isla garanno. markaan guurno dhinacaan u guuraynaaye ayaan laga cabsanin oo dhinaca khatar keenaayo oo balaayo ka dhacayso oo qar laga dhacaayo oo dadkaan u bixiyo dadka yowmul qiyaamaha, the doomsday people. yacni balaayaa dhacayso, cirkaa soo dumaya, waa la kala go'ayaa, waa la kala tegayaa, waa la isdilayaa, waa la waxaynayaa. maya, laisma dili. maanta dadkeena dhexdiisa dhowr meeloodaa colaada ka jiraan, waa run. laakiin dee colaadahaasi dad kastoo mujtamac kastoo isla nool un wixii ka dhex dhici jiray yaa ka jira. ma aha colaado siyaasadaysan iyo colaado maxaan ku idhahday siyaasaddu ay ka soo shaqaysay, intaba maaha. ayadaana inahaana waa ajende oo priority ayuu xukuumadda u yahay oo waa la daba joogaa, waana la daba socdaa, waana laga lib keenaya haddii alla yidhaha. annagu ballanaan qaadnay, dadkeenna ballanaan u qaadnay. ballantii aan qaadnay ayaan rabnaa inaan ka dhabayno. ballantaas oo principle, mabda ah. waxaan dadkeenna u ballan qaadnay qof aanay talada u dhiibanin ayagu in aanu talo u qabanin, qof aanay dooranin iyagu in aanu xukunkooda iyo mustaqbalkooda iyo aayahooda aanu go'aan ka gaarin, laakiin qof ay ayagu doorteen inuu go'aanka u gaaro, waddada la qaadayo uu marsiiyo, horkaco, taladeeda uu la baxo, la yimaado. waxa aan rabnaahay inaan mustaqbalka Soomaaliya ma dhicin 55 sano, ma dhicin arrintaas 55 sano ma dhicin. marka waxaan rabaa, waxaan garan karnaa wixii 55 sano ka hor dalkan ugu dambeysay. maanta inta xasuusato oo faa'iidaday lahayd iyo wanaagay lahayd garan kartaa way yartahay, aad iyo aad u yartahay. inteena kaloo dhallinyaradeenna badan weliba maba aragba. qaarkeen waxaa laga yaabaa inaan soo aragnay. anigu dadka ugu waaweyn aan ka mid ahay waa soo arkay, laakiin maalintii cod xora la bixinay u dambeysay ma codaynin. da'dii lagu coday lahay ma gaarin. laakiin waa joogay sidii loo colayay, sidii loo ololeynayay xisbiyadii iyo calaamadii iyo maxaanku idhahdaa calaamooyinkii, wankii iyo orgagii iyo hangoolkii iyo maxaanku idhahdaa quracii iyo qansixiyaan xasuustaa. wax qurxoon ma ahayn. meeshii inaan u noqonno waa rabnaa, laakiin siday ahayd inaan ugu noqonno ma rabna. qarnigii 20aad ee taase qarnigii 21aad mid la jaan qaadi karto, doorasho la jaan qaadi karto, nidaam la jaan qaadi karo, xisbiye la jaan qaadi kara inaan la nimaadaan rabnaa.
siyaasadda dadkeenna inay isku keento isku soo celisaan rabnaa dadkeennu in ay dan ka dhex arkaan inay isku yimaadaan oo cornerkaas ninka Soomaaliya ka degan iyo cornerkaas kale ninka Soomaaliya ka degan dantooda siyaasadeed inay inta iska dhex arkaan midoobaan oo hal ajando siyaasadeed oo dalkan lagu horumarinayo ay la yimaadaan waa sababta aan u xadidnay xisbiyada iyo waxa ay wadooyinka dadkanagu ay hore ugu kala dhumeen inaan ka soo oodno oo wadooyin badan oo dadku ay ku habaabaan oo ay ku kala dhumaan aan loo furin waaye waxa ujeedada constitutional deliberationska iyo shuruucda iyo nidaamka fikirka filosofiga ka dambeeyahay waa kaas dadkeenu mudday wada maxaan ku raadayay kala duwan isaga yaacayeen oo mid walba laga yaabo meel fiican inaanay ku dhamaan ama aanay dhamaanayn weligood ma dhamaato tahay waxaan rabnaa dadkeenu inay qaadaan wadooyin kooban marka la kala tago wadooyin kala duwan la qaado ra'yiga kala baahay ra'yi urursan ma jiro dhaqaalihiya kala baahay xigmadda iyo caqliga kala baahay inaan isku soo celinaan rabnaa oo ay awood isku timaado oo dhaqaaluhu isku yimaado oo fikirka siyaasiga isku yimaado oo maxaan ku raadaa dad tashan karo go'aan gaari karo ilaan dad hayaacda go'aan ma gaari karaan dad tashan karo oo go'aan gaari kara yimaadaan siyaasaduna tira badnaan iyo kala yaac iyo ma aha siyaasaddu mar walba waa abaabulnaan iyo maxaan ku raadayay in oo organization based inay ahaato individual based inay dadka Soomaaliyeed madaxda ay dooranayaan fursada u siina awoodda dadka loo celinaa inay doortaan hogaamiyaashooda haddii uu ku xumaadana biri inay iska bedeli karaan waa iska leexi karaan waxa soo haray intaas waxa siyaasaddu deganaanshiyo ma helayso nin baahan waa nin caraysan sidaas daraadeed in lala dagaalamo faqriga in economiga kor loo soo qaado in qof walba Soomaaliya caawa markuu gurigiisa u hoyanayo oo saxan yar oo cambuulaa inuu ilmihiisa asiga ay cunayaan uu og yahay walwal aanu ka qabin caawa maxaa ilmihii dabka maxaa loogu shidayaa oo aanu u shaxaad tagayn hebelu muxuu ahaa shaxaad isii oo awood qofku markuu sidaa noloshaas galaahay awood ma laha markuu meesha galo caawa ilmaha dabka uma shidna markay ka gaarto awood ma laha oo aayihiisa iyo mustaqbalkiisa iyo taladiisa ku gaaro xigmadii carabiga ahayd maxay ahayd ma laa yamliku quutahu laa yamliku qaraaruhu qofka haddaanu quudkiisa heli karin qaraarkiisana asiga ma laha saxanka cambuulada qofka siiya ayaa go'aankiisana iskale oo go'aanka u gaaray